دني والله وحبنا إري ما يدني نو دني لفها كودك تنك كودك عاو الدني أنا كفوق كورم وقسموا بالله آرنجان وحن كهلابين ويل كان وحيس لكهلابين مايان ورنيمان كيدا مايو اج ان كل جرنا آرنجان با هبينكي لو كلا دومنا الدني بقولكم كان ابا بقول كان بين الدنيا هوايبا اسد ديانا يابي واي مر هدي ساستانا سياسيين الدولة دحانو افكودو ku hadlaya oo kiyalihi lafta gareen markaan ku fiirinay xaaladda ya doorashada Puntland horta dani waa soo baxaya dani waa isdiidanahay ma ogolin laakiin dhinacaas nooga adkaa fuustadan ku soo riixeen anagana waa diyaarsanay anaga iyo dani waxaan kala helnaan leenahay qaybta koowaad ee barnaamijka dani yow cimaamadaada waa ma heesan karo wallahi ma heesan karo qaybta labaad ee barnaamijkana horta buug irir Soomaali leeyahay oo sir ay ku qarsan tahay oo hadda kadib daarood ama Soomaali laga qaranayo ma jiro horta siyaasiyiin badan oo qaabab kala gedisan uga hadlaya Muuse Biixi iyo Abiy Arki xaalka saas maaha waxba qarin meeno Muuse in badii uu ku abaal mariyo nimanka liira Ethiopia wallahi hal qodob buu dhaafsaday qodobkaasna waa in ciidanka Ethiopia ay u qabtaan laascaano caawa adduuna iga qora wiilashaas dhul bahante xukuumadda Somaliland iyo Muuse markay xaaladda qiimeeyeen waxa u soo baxday in ciidanka Ethiopia lagu qabto Sool iyo Sanaag oo Somaliland oo Ethiopia liira ku difaaco badan dhulka ka difaaca halkaas ka difaaca macnaha aaga ilaahay idinku dhaarshay ka waran waaye waxa kale oo leeyahay kelinka lixaad ya Ethiopia ba Somaliland noqonaysa Ethiopia inta bad Soomaaliya leedahay ama Somaliland inta imaado allaabanayso maskaxdaada ka saar waaye qodobkaana waa fadhiisin doonaaye aan u soo laabto horta waxaan rabaa reerka aan ka dhashay Hawiye caawa inaan u hambaliyeeyo power of Hawiye oo kaashanaya ciidanka qalabka sida galabta waxa u suurta gashay magaaladii caad aheed in casarka si jameeca lagu dukado oo qawaariijtii laga eriyo ama isaga baxaan kadib isreeb dheer oo buurta jaajaha ee muddo ku rafanayeen nimanku duqeyn ha noqoto ama dagaal toos ha noqdee gobolka mudug waa safe xamar kaliya safe ma mudugna waa safe galgaduudna maxaa ka haray waa ceelbuur galhareeri istaraatiijiyad ahaanna waa baxayaanba power of Hawiye iyo ciidanka qalabka sida hadda waxay u jeeysan doonaan ama u ruqaansan doonaan dhankaas iyo koonfur galbeed iyo Jubbaland wixii intaas ka dambeeyay waa barwaaqo wadanka dee xasan ha loo duceeyo waaye Puntland xaaladda horta siyaasadda habeenba meel bay kaaga furanaysaa moogta dani iyo dawladda dhexe haddaan nahay wax badan waa isla soo rarfanay waana ka soo guuleysanay hadday imaado cunaqabateynta hubka hadday imaado siyaasadihii caalamka waa kaga guuleysanay laakiin tiisii maxalliga waxaad moodaa inuu nooga guuleystay wax kalena maahane garab baa naga banaan garab baaba jiiska nahaba niman la yiraa Aaranjaan wax badan horta dagaal waa nugula jireen laakiin Aaranjaan hadday noqoto doorashadii dimuqraadiyaddana waxay riixayay ee dani saas u wadana Aaranjaan bay ahaayeen maantana cidda gurigiisa galaysa ama u dhuumanaysa oo dani wuxuu rabaa isku soo aadistaa dadurba 66 jeebkiisa taa kala soo bax jeebkiisa Aaranjaan kule hoolka anaga kaaga horreeyna hoolka waa aadeyna wala asadiyaana yaaba waxay noqotaba mar haddii nimankii caasimadda deganaa eeba campaigner u yihiin shaati mucaarad ayagoo gashan dani u yihiin dawladda dhaxway qiimeysay xaaladda la qiimeeyay dani moogta takreem maahan moogta waa nin wiil Soomaaliyeed waayo horta waa naga guuleysta doorashada waa guuleysta dhihi maayo laakiin 90% waxay u badan tahay kaligeena ma siyaasiyiin badan baa qabtay inuu dani soo baxayo Aaranjaanana soo saartay cid kale oo dani aan leenahay way soo saartay ma jirto horta saas markay xaajadu taana dawladda dhexe hal fuusta u banaan waxa u banaan inaan madaxweyne ku xigeen dhulbaanta ka keenno dani markuu dhaqaaqo aan jalaafo uga dhigno horta dhulbaantana diidi maayaan SSCna iska aadaan laakiin intana waa joogaan 46 shaatii liin ayaga jalaafada kaliya aan dani isaga dhicin karno waa Ahmed Karaash oo aan la sasabi karin macna inaan kaysanno macna hambaliya dani alle waa kaaga fuqay aniga taas waa kaaga fuqay leega adka waaye intaas halkaasaan kaga gudbaayaaye Muuse Biixi horta xaaladda waa ku xuntahay Muuse xaaladda waa ku xuntahay horta gardarada Abiy shacabka Soomaaliyeed sida uga falceliyeen meel kasta joogan waxa la horta hambaliyo
ama daaro sheekada horta daarood iyo hawiye dig qabiil ma joogto markii badda iyo cirka iyo dhulka iyo xuduudaheena iyo diinteena imaado qabiil halkaas la iska dhigo Soomaaliyeed waxa halkaasna dhiga maanta Oromo ayaana kala qaadaysa horta siyaasadda Ethiopia waxay naga aaminsan yihiin inaan annaga aanan istaahilin qaranba oo aan qabiilanahay qabiil kastana kheyraadku ku fadhiyo laga qaato bay naga aaminsan yihiin marka waxaan rabaa Muuse Biixi siyaasiyiin badan baa qaab kala duwan uga falceliyay badii uu hibeeyay abi laakiin caaw ina runta idin sheegan rabaa oo muuqaalkan meel kasta ay gaarsiisaan buug dambo irir Soomaali oo wax ku qorayeen oo la qaranayo ma jiro Muuse iyo xukuumadda Somaliland waxay la qiwaayeen in wiilal dhulbahanta ah oo aan taageero buuxda iyo dawlad midna aan ahayn oo laas aana jooga inay maanta boqdarkeen joogaan oo dhul habar jecel ay gubayaan ciidankii la islahaa yaa comeback ha sameeyaan moraal ma leh oo meel ay u socdaan ma jirto wala fadhiistay waxa la yiraahdaa hadii annaga aan dagaal kala qaadno oo aan guul dareysano Somaliland waa tirtirmatay shacabki Somaliland wax loo sheegay malaha haye Ethiopia in bad loo hibeeyo waxyaabaha ugu weyn caaw idin sheega wallahi Ethiopia badda marka la dejiyo 20 kilomitir laga ijaarto in la yiraahdo dhulka ka difaacda ilaa wala soo weerara Soomaa cadawgi waa Soomaaliya dhulka ha laga difaaco oo Sool iyo Sanaag lagu qabtaa la rabaa horta waa qodob halkaas markay taagantana waxa arki doontaa hadda soo jaamac siyaad iyo bahar same iyo sheekada ma joogto iyo Umar Maxamuud soo ma joogto xawaadle iyo raxweyn laas aano Soomaalinimada ka difaaca arki doontiin horta taas waa qodobka labaad waxana in weeno way soo jiraan ilaa 7 wiilwaal adba dumarka tii waxan la wadaaga caashaq hadda siyaasadii saas baa ku ay mid haleega qoro Ethiopia hadii Muuse qorshahaas degsaday Ethiopia maxaa u yaala ayadana qorshe kale degsatay Ethiopia waxa u yaala hadii badii ay fadhiisatay Soomaali iskhilaafsan ay ka faa'iideysatay laas aana inay dhulbaanta ka difaacdo baddaas iska daldalata kaliya ma in Somaliland laga dhiga mustaqbalka kalinka lixaad ee Ethiopia wuxuu waa adduun hadaan noolahay iyo hadaan dhinta haleega qoro qodobka ugu weyn oo abi u socdo waa dhul balaarsi kaliya ma oo Somaliland inay bad ka ijaaratay Ethiopia wax faa'iido abi ugu jiro ma jirto waa in la qabtaaba waxay ka laandheerisiin ogaadeenkan iyo Soomaaliyeyntan kalinka shanaad ma ka laandheerisiin maya waa siyaasad lagu dabaayo Somaliland oo kalinka lixaad looga dhigayo laakiin Muuse waxa soo dhan uma jeeday waxa kaliya uu Muuse u la qilaayay guul daradii SSC ee waxa waa laas aani gooja cadda way ninba hadaf buu wataa anaga saacadan kadib wax qarin meeno marka waxaan rabaa horta shacabka Soomaaliyeed meel kasta joogaana inaan uga hambaliyeeyo qaabka iyo falcelintii ay ka sameeyeen hadday noqoto mudaharaad iyo hadday noqoto mataqaana falcelin xoogan iyo hadday noqoto siyaasiyiinba gardarada Ethiopia ee kula dhaqaaqday madax banaanida Soomaaliya waxaan rabaa marka inaan ka codsado shacabka idinkuna aad iga gaarsiisaan horta qabiil daarood la yiraahdo iyo mid hawiye la yiraahdo iyo mid kale magac kale sita iska ilaaw maanta waxaad qiimo ku leedahay buu abi taataabta horta inaad ka midowdaan taas gobol kasta oo Soomaaliya ku yaalana banaan baxyo aan marnaba yaa kala istaag lahayn la sameeyo way si caalamka loo tuso gardarada Ethiopia intaas waa iga codsi idinkuna waa idinku amaano war xifaaltankeena iyo daarood iyo hawiye meel noo dhiga hadda laandheernimadii yaaba shaka ku jiraaba bad awowga u soo dhintay oo abkooga u soo dhintay oo isirkaaga qabri ugu jiraan baa la leeyahay maanta sahal baa ku qaadanaysa adigana TikTok baa daaqad saaranta ama Facebook baa comment qoraysa ama Snap baa war maxaad duubaysaa sharaftaadii iyo karaamadaadii iyo qiimkaaga iyo dignity-gaada la dhaawacaya tan waan ka mideysanahay reer iyo qabiil iska ilaaba xasan iyo xukuumaddiisa aan u daba fadhiisano difaaca qarankan shacabka Soomaaliyeed oo mida waaye intaas baa barnaamijkayga habeenimo ku soo gabagabeenaya inta barnaamij noocan aan ku kulmi doono waa booska oo kuleh badaan ciyaar ma gasho باي عن دفاع عنه بدنا عن دفاع عنه والله بدنا لقى كفتمين بدنا موبايل لقى قاتمه بدنا ويل كاجا مستقبل ككور دريكو انت الصومالي جرتو با انتفاع ينعفكو هستا بدنا عيار معها يلا صيحانين